kulan hawleedkii aan la yeelanay madaxda Somaliland run ahaantii waxyaabihii ka soo baxay aniga ra'yigayga waa ay fara badan yihiin waxa ugu muhiimsan in aan si fiican u fahamnay Somaliland aragtidooda ku aadan xaaladda amniga badda waxaana ila tahay arrintani inay muhiim u tahay ciidanka badda ee midowga Yurub iyo NAVFOR iyo ergada UCAPNESTOL shaqada joogtada ah ee xoojinta awoodaha badda ee ay ka wadaan gobolkan waxaan hadda idin geyn doonaa markabka Johan David oo aan u sii socon doono ilaa 15 daqiiqo halkaasna aad ku qaadan doontaan 10 yar oo kooban kulan hawleedkani wuxuu ka marakacayaa iskaashiga u dhaxeeya ciidanka badda iyo NAVFOR iyo ergada UCAPNESTOL oo labaduba ay hoos yimaadaan midowga Yurub taasoo ay si buuxda uga wada shaqeeyaan higsiga iyo yoolka ay u dejisay midowga Yurub gobolkan iyo qaybtan dunida run ahaantii waa tusaale wanaagsan oo u faa'iido dowladda Somaliland iyo sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen ee ay iskaga kaashan lahaayeen horumarinta awoodaha ciidanka ilaalada xeebaha iyo guud ahaan xaaladda amniga ee badda ee ka taagan gobolkan waxa kale oo ay muhiim ugu tahay arrintani ciidanka badda ee EU NAVFOR waa la dagaalanka burcadbadeedka oo ah sababaha keenay ama dhaliyay in ay ka hawlgalaan qaybtan gobolka waa ballan buuxda oo lala gelayo midowga Yurub oo ku salaysan iskaashi iyo wada shaqeyn buuxda annaga oo ka faa'iideysanayna fursadan waxaan rabnaa in aan magaca dowladda Somaliland ugu mahadcelino taageerada joogtada ah ee Yurub la garab taagan tahay Somaliland kulankii maanta wuxuu ahaa mid aad u miro dhaliyay taasoo ah aniga ra'yigayga iyo fikradihii ka soo yeeray wasiiradii iyo saraakiishii ka qayb qaatay kulankan